السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. qofka ugu yaraan 5 saacadood oo hurdo aan helin 24 saacadood guud ahaan gaar ahaan habeenkii aan 5 saacadood ugu yaraan aan ku raaxaysan hurdo sanqar la'aan wuxuu asiibaa qofkaasi ama waxa uu ku dhacaa 5 marxaladood ee khatarta ku ah caafimaadka. ta koobaad qofku waxa uu noqdaa mid irritable ah, qof cadho badan oo diiqad badan ayuu noqdaa. arrinta labaad waa lack of handle emotion, waxa ka baxa gacantiisa maamulkii uu maamulayay ee uu controlayay emotionkiisa maamulkii uu maamulayay ayaa gacanta ka baxa oo emotionkiisa iyo shucuurtiisa ma maamuli karo. khatar ayay taasina gelisaa qofka ibni aadanka. arrinta saddexaad qofka waxa ku yimaada chronic stress daba dheeraada. waa arrinta afraad ee depression ayuu sidoo kale dareemaa. iyo arrinta shanaad oo ah anxiety, in murugo culusi qofka ay ku timaado. markaa saddexdaa ugu dambeeya dhakhaatiirtu markay soo qaadanayaan ee dambe qofku waxa uu nuglaanaya ama waxa uu si toos ah ugu dhici karaa xanuunada mental illnesska, yacni qofku inuu waasho. kuwan xaalad nafsiya ay qofkii ku abuurayaan ay gelinayaan, yacni stresskii iyo anxiety-gii iyo depression-kii hurdo la-aantu qofka ay ku keentay waxay ku keenayaan inay mental illness xanuunada maskaxda inuu markaa qofku caadi u develop gareeyo. xanuunada maskaxda oo qofka ay ku timaadana qofkii inuu waali u abaaro ayay ku dhacaysaa. sababta inta badan dadka dhakhaatiirta psychiatristiska u taga ee yacnihii xaaladoodu ay psychiatry gashay loo siiyo dawooyinka le antidepressionka dawooyinka la yidhaahdo ee dejiyayaashaahi maxay qofka waxa ugu faraha badan ee qofka ay u sameeyaan. waxaan filayaa inaynu isla fahmayn. waxa ugu faraha badan qofka way hurdaysiiyaan. halkaa maxaad ka arkaysaa waalida waxaa lagu daweeyaa hurdada. hurdo yaraantuna waxa ay keentaa waali. qofku haddii uu waashana hurdo ayaa la siiyaa, hurdadaa loo badiyaa si uu u dego. haddaba maxaa inoo muhiima? waxaa inoo muhiima saacadaha aynu seexanayno inaynu aada u ilaalino si farxaddeenna iyo deganaanshaheena iyo caafimaadka maskaxdeenna iyo caafimaadka jidhkeenna aynu markaas u ilaashanno. sidoo kale qofku inuu wax xuriyo, inuu qof soo saar yeesho waxa ay ku xidhan tahay inta hurdo ee uu qaato. haddaba 5 saacadood oo habeenkiiya ugu yaraan waa ina seexataa. maalintiina inaad indhacasaysi aad gashan karto waa iyaduna mid kuu muhiim aad yara seexan karto. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.